jeengadihi ay ka fujisteen meel lama deegaan ay ka dhigeen dayactirkiisa isbuucanba waa la bilaabaya insha Allah taas waxa way dawladna lagama doonayo qurbo joogna laga doonima aniga shakhsiyan maxamed cabdiqaadir dayactirkiisa bismillaah alxamdulillaah ilaaha kuma san maanta igu samay inaan imaado deegaankeygii oo deegaan doorashadeed ay tahay caag Bashiir nabadoona aad iyo aad kaaga mahad celinayaa ragkan galo garbahaadana sidaas oo kale aan ugu mahad celinayaa oo xaqiiqdii u dhabar adeegay adiga iyo ragga kula mid ah in cadawga shabaabka aysan ka hirgelin afkaartooda iyo fikirkooda deegaankan taa iyada wax lagu guuleystay in maanta deegaankan maskaxiyan oo xor u yahay jismiyan oo xor u yahay taas ilaaha ku maasan idinkana waa idinkaga mahad celinaya marka labaad baahida deegaankan haday ahaan leedo Cabdi Cagweyn iyo Caag Bashiir oo soonka wawiga ku yaalo idin oo cadawga muddada u dul jooga baahidoodana aad u badan tahay waxayna la mid yihiin deegaanada kale ee xawaadle oo iyakana cadawga u haysta haday ahaan leedo waxbarasho haday ahaan leedo caafimaad haday ahaan leedo horumarinta bulshada qaybeeda kala gedisan ma jirin wax horumarin ah oo muddo 12 sano shabaab ay haystaan muddo bil ah waxaan joogay degmada Bulburta ilaa meeshan u dhaxayso soonkan oo dagaalku ka socdo sidaad u jeedaan tuutahan aan watay muddo bilbo iskama nasiibin dhar kale ma aan wadan Muqdishona waxay ugu dambeysay 2 bilood ka hor intaasna waxa aan u mareeyay rafaadkaas iyo dibkaas waxay inaan arko deegaankayga xor ah iyo dadkayga xor ah nabadoon waxaan ku balan qaaday adiga iyo ragga kale deegaanka iskoolkaas oo cadawga sidaas ay yeeleen jeengadihi ay ka fujisteen meel lama deegaan ay ka dhigeen dayactirkiisa isbuucanba waa la bilaabaya insha Allah taas waxa way dawladna lagama doonayo qurbo joogna laga doonima aniga shakhsiyan maxamed cabdiqaadir dayactirkiisa adiga nabadoonkii iyo ragga Cali Xeedar iyo sargaalkan iyo ma aragtay aan iskala shaqeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo meesha waxa kale insha Allah taala markii amnigeeda 100% sidoo haduu yahay Ilaahay nagu sii suga xarun caafimaad hooyada iyo dhalaanka ah oo iyadana 3 qol ahna fadhiga ku xiga ayaan dhagax dhigi doona waan la dhisi doona iyadana waxaan rabaa hay'ada dawliga iyo kuwa dawliga aan ahayn Caag Bashiir waxay ka mid tahay deegaanada cadawga laga xoreeyay waxayna baahi u qabtaa gargaar degdeg ah dadkeedu iyo dadka deegaankan ku nool min laga soo bilaabo Bulburta wabiga jiinkiisa ilaa Beledweyne deegaankaas dadka ku nool waxay u baahan yihiin gacan dawladeed oo xoogan ay u baahan yihiin hay'adahan waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsiya badan inay ka soo gaaraan maamulka degmada Bulburta waxaan leeyahay Caag Bashiir waa laf dhabarka degmada Bulburta meelaha ay ku tiigsantahay caanahana inta loogu qaadaa qudaartana inta loogu qaadaa haddana xuquuqaadkii Caag Bashiir oo ay ku lahayd degmada Bulburtana kama muuqato sidaas daraadeed haddii hay'ad tahay samfalna waa loo baahan yahay in degmada Bulburta ay gooni ku soo fiiriso aagan dadka qurbo joogta ee ka soo jeeda Caag Bashiir iyo Cabdi Cagweyn waxaan leeyahay waa inaad gooni ku soo fiirisataan dadkan u soo gurmataan doorka aad leedihiin qurbo joog ahaan waa inaad qaadataan doorka qurbo joogta deegaankan ee ku leedahay difaaca iyo horumarintana waa inay qaataan baaqaasna qurbo joogtan u dirayaan kuwa gudahan waxaan leeyahay halganka socda qaybta aan ugu jirnaa si la xaadino qaybtan iyo maanta waxay maraysaa dhankii ka baxdo waa bakeel galeen dhankii reerkii xawaadlo kamid ah dhankii ay ka baxdaa maanta waa bakeel galeen waxa la rabaa qof walba xawaadlo ah maanta dagaalkaas lagu jiro oo iyo magaalo saamay jifo walba iyo reer walba aag ku aadan inay doorkeeda ka qaadato maanta maalin colka lagu kala har xawaadlo colkuma kala harin maanta meel lagu kala harin reerkan waxay ku maasanayeen doorka ay lahaayeen dagaalkaas way qaateen wayna sii qaadan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo sharaf ay tahay waxaan helin nasiib oo aysan helin raggii iga horeeyay kursigan ku fadhiyay way jeclaayeen inay imaadaan wayna rabi lahaayeen inay sidaan oo kale u imaadaan laakiin sababaha iyo duruufaha jir uma aysan saamixin inay imaadaan